السلام عليكم مقايرت meel baa joogtiin oo mar kale muuqaal cusub ku eegi doonno wararkii ugu dambeeyay suuqa iyo akhbaaraadada haatan wargeysyadu ay diiwaan gelinayaan Manchester oo January u dhaqaaqaysa Romeo Lavia sidoo kale tan Welbeck ay markaa rabaan inay dib u soo cishtaan Arsenal iyo Barcelona iyo Chelsea oo isku haya difaac ka tirsan kooxda kubadda cagta Nottingham Forest Diazizi oo markan koox weyn oo Premier League qaban kara Lookman iyo mustaqbalkiisa maxaa laga leeyahay Farim Lopez iyo arrimaha Chelsea isaguna muxuu ka yiri dhammaan warbixinada ayaan haatan eegeynaa iyo akhbaaraadada kale haddii aad muuqaalkeena oo la garay kanaalkana subscribe nasar haddii aanu ku bilownaa wararkii ugu dambeeyay suuqa haatan wargeysadu warar dhowr ay daabacayaan ku saabsan suuqa soo aadan ee January ee dhawaan furmi doona kii hadda maadaama uu xirmay saxiyo dhowr la sameeyay Arsenal iyo Barcelona ayaa haatan ku soo biiray dagaalka loogu jiro difaaca 23 jirka ah oo ciyaara kooxda kubadda cagta Nottingham Forest ninka lagu magacaabo Murillo 23 jirka reer Brazil difaaca dhexe ugu ciyaara kooxda Nottingham Forest markan waxaa isku haya Barcelona oo markaa rabta bedelka Inigo Martinez inay soo xirigeliyaan iyo macallimiin Arteta oo haatan doonaya Saliba maadaama uu ka dhaawacmay in haatan uu ka sii baaraan dego waxyaabaha dhici kara maadaama haatan Murillo oo dagaalkiisa soo galay Arsenal ayaana haatan Barcelona iyo Chelsea kula dagaalamaysa xidiga lagu magacaabo Murillo oo markan kooxda Nottingham Forest u ciyaar sida haatan majalada lagu magacaabo Catch Office ee daabacayso marka Chelsea xitaa dagaalkan qayb ay ka yiino ninkan si weyn ay u qudareynayaan waxay rabaan inay soo xirigeliyaan marka kooxda kubadda cagta Chelsea Barcelona iyo Arsenal dhammaantood haatan waxay isku hayaan wiilka 23 jirka ah ee lagu magacaabo Murillo kaas oo qalbada dhexe ee difaaca uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Nottingham Forest iyagu haatan waxay ku dadaalayaan inay wiilkooda cishtaan kuna sii hayaan garoonkooda marka laakiin saddexdan kooxood laba kamid ah Premier League ka dhisay midna Spain ka dhisan tahay dhammaan haatan waxay daneynayaan laacibkan la yiraahdo Murillo in soo xirigeliyaan Barcelona baahi waxay u qabaan Inigo Martinez bedelkiisa inay helaan sida haatan majalada Catch Office daabacayso xitaa majaladaha Catalonia ka soo baxay daawacayaan Chelsea sidoo kale to laacibkan si weyn ay u daneynayaan maadaama Colwill iyo Rakalete markaan ka dhaawacmeen marka sheekooyinka ayaa haatan soo baxaya sidoo kale to kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa dagaal adag ugu gali doonta xidiga lagu magacaabo Nathan Colwill oo haatan ka tirsan kooxda kubadda cagta Brentford Liverpool si weyn suuqa difaaciga uga baadi goobayaan Liverpool haatan Tottenham ay kula dagaalamayaan xidiga lagu magacaabo Nathan Colwill labada kooxood ba si weyn ay ninkan u doonayaan sida haatan warbixintu ay daabacayso majalada lagu magacaabo Catch Office marka Liverpool haatan waxay rabaan in la yiraahdo January u dhaqaaqaan Nathan Colwill maadaama ninka lagu magacaabo Maguire sheekadiisa ee burburtay haatan sheekada kow loo soo bilaabo tahay oo ninkaana dib rabaan inay u soo xirigeliyaan sheekadiisa sida daraadeed haatan waxaa la leeyahay Nathan Colwill kooxda kubadda cagta Liverpool markaan diirada ay saarayaan oo xidigan ay Tottenham kula dagaalamayaan marka dagaal adag ayaa markaan u dhaxeeya Spurska iyo kooxda kale ee Liverpool lagu magacaabo Tottenham iyadoo waxay rabaan difaacan inay soo xirigeliyaan sida haatan laga soo xiganayo wargeysada ka soo baxay England sida Mirror iyo Catch Office marka sheekooyinka ayaa haatan la diiwaan gelinaya xidiga lagu magacaabo Nathan Colwill isagoo xataa wuxuu markaan dareynaya inuu markaan ka baxo qalcada Brentford ay ku ciyaarto maadaama laacibkan uu doonayo kooxaha waaweyn Premier League inuu ku biiro horumar weyn uu sameeyo sida daraadeed ninkan haatan labadan kooxood ayaa ku dagaalamayaba sidoo kale kooxda kubadda cagta Chelsea markaan waxaa laga doonayaa xidiga lagu magacaabo Romeo Lavia ayaa markaa laga doonaya wiilka iska dhaawaclaha ah marka Manchester United ayaa doonaysa inay soo xirigeliyaan sida haatan majalada lagu magacaabo Catch Office ay soo qaadanayaan warbixintan waxay leeyihiin Manchester United ayaa qorsheynaysa inay soo xirigeliyaan xidiga lagu magacaabo Romeo Lavia sidoo kale to majalada The Sun ayaa haatan iyaduna waxay daabacaysaa in Manchester United ay ninkan u dhaqaaqayaan oo ay rabaan inay xidigan Romeo Lavia lagu magacaabo ay soo xirigeliyaan Manchester Carlos Baleba iyo awal doonayeen suuqa haatan xirmay inay soo xirigeliyaan laakiin si kooxdiisa Brighton ayaa ku adkeysatay xidiga inaysan marnaba iibi doonin Manchester marka xidiga kale to Angle Steele ay ku jiraan Rakal ayay doonaan iyaguna way ku soo fashilmeen laakiin January waxay doonayaan ninka lagu magacaabo Romeo Lavia inay soo xirigeliyaan marka akhbaaraadada ayaa haatan Manchester United laga diiwaan gelinaya Romeo Lavia iyo Chelsea markaan si la yaab leh ugu doonayaan oo waxay rabaan xidigan inay soo xirigeliyaan marka Shadin Xumra haatan waxay u tafaxeedanayaan helitaanka Romeo Lavia marka United Steel midfielder ay doonayaan oo laacib qalbada dhexe ka ciyaara ay wali qudareynayaan sidoo kale Manchester United waxay rabaan inay dib u soo cishtaan ninka lagu magacaabo Danny Welbeck ay doonayaan soo xirigelitaankiisa xidigan ayaana haatan kooxda kubadda cagta ee Brighton ku sugan majalada lagu magacaabo The Sun ayaana saakaydan daabacaysa in kooxda Shadin Xumra ay doonayaan in ay dib u soo cishtaan xidiga lagu magacaabo Danny Welbeck marka Danny Welbeck hore ayuu Manchester United ugu soo ciyaaray oo iskaga dhaqaaqay ninkan waa nin Premier League iska yara meermeersan haatan wuxuu ku sugan yahay kooxda kubadda cagta ee Brentford marka Shadin Xumra
haatan waxay isku diyaarinayaan inay dib u soo celiyaan xidiga lagu magacaabo Danny Welbeck. Manchester haatan Benjamin Sesko iyo Saxi ayaa ku sugan. Hoyland ayaa ka dhaqaaqayo dhanka iyo garoonka la yiraahdo Maradona Stadium ama San Paulo u dhaqaaqay ee Napoli ay ku ciyaarto. Sidaa daraadeed haatan waxaa loo baahan yahay laacib cusub oo weerarka ka ciyaara. Marka 33 jirkan ayaa haatan Manchester United indhaha ku hayaan. Sidoo kale Manchester United jamaahirtooda waxay ku duceysanayaan Onana inuu baxo. Haatan maxaa soo baxaya mataqaana in Manchester diyaar u tahay inay ninkan iibiyaan. Awal hore way rabeen inay iibiyaan laakiinse maadaama suuqu xilli dambe Manchester go'aanka gaareen xidigana koox rabtay ee sajin xilliga haatan ay diyaar u yihiin laacibkan lagu magacaabo Onana inay iibiyaan. Manchester United ayaa markan albaabada u balaqday Onana inay iibinayaan. Marka ninkan ayaa haatan baxaya wiilka hore Inter Milan. haatan waxaa la soo warinayaa inuu ka baxay qalcadda Old Trafford. Manchester United ee diyaar u tahay laacibka lagu magacaabo Onana inay markan iska iibiyaan. majaladaha kale ah The Sun, Catch Office iyo Team Talk ayaa dhammaan haatan warbixinta wada daawacaya. marka Manchester United albaabada ayay u furayaan bixitaanka Onana. sidoo kale wararka haatan jiri qayb waxaa ka noqonaya kooxda kubadda cagta Chelsea haatan waxay rabaan laacibka lagu magacaabo Diaz inay iibiyaan. xidigan kooxda kubadda cagta Bournemouth ayuu waqti amaah ku soo qaatay. Aston Villa haatan suuqa haatan doonaysay. marka kooxda kubadda cagta West Ham United ayaa haatan diyaar u laacibkan inay soo xirigeliyaan. January ayay rabaan laacibkan inay u dhaqaaqaan. marka Chelsea xidiga badan ayay rabaan January markii la gaarana sidoo kale inay lacag badan ka sameeyaan. nimanku waa kooxda lacagaha ugu badan haatan soo xirigay suuqa marka loo fiiriyo. marka nimanka dab yar ma shidaan. Chelsea waa niman smartiya oo lacagta si loo sameeyo yaqaan. marka ninka lagu magacaabo Diaz haatan waxaa la leeyahay January kooxda kubadda cagta West Ham United ayuu u dhaqaaqayaaba. sidoo kale sheekada Fermin Lopez waa la soconaa in kooxda kubadda cagta Chelsea laba dalab ay ka gudbeen. wali nimanku kameysana jadhigeen oo suuqan markuu dib u furmo January ayaa haatan doonayaan inay soo xirigeliyaan. ninkii Lamine Yamal ayaa marka ninkii la yiraahdo sheeg Fermin Lopez ku maadeysanayo leh warniyo Lopezo hadda daacad ma ka tahay ma inaad dhaqaaqdo Premier League aad rabtaniyo haatan dalaba laga soo gudbiyaa maqleeyne. marka wuxuu yiri warniyo waxaas ma jiraan tartiibniyo aniga Barcelona ahay meel uga ma socdo meel adiga aad joogin maba inuu reeso taagay. marka waa laba nin oo asxaaba oo isfoodeynaya oo marka mid walba mid kale duraya waa. marka Lamine Yamal inta soo bado kula war haatan niyo naga dhaqaaqay daacad ma ka tahay. marka ninka waa nin dhiblow cunugan waa farq caadi ah. marka wararka haatan Chelsea ayay ka cusub yihiin. sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Atlanta liiskooda Champions League marka waxay ku soo dareen ninka lagu magacaabo Lukman oo la socona marxaladiisa inay iska adkeed dalabyo badan laga soo gudbiyay kuwa amaaha iyo kuwa toosaba labadaba kooxda kubadda cagta Atlanta way diideen oo reject ayay wadeen. Inter Milan ayaa 45 milyan ku doonaysay bishii June inay laacibkan ku qaataan laakiinse kooxda kubadda cagta ee Atlanta ayaa gebi ahaanba sheekada diiday. Bayern Munchen ayaa waqtigii ugu dambeeyay suuqa 48 saac ugu dambeeyay suuqa laacibkan doonaysay inay soo xirigeliyaan amaah ayay isku dayeen waa laga diiday. xitaa lacag toos ah ayay isku dayeen oo permanent transfer inay sameeyaan iyaduna way suurtagali weysay. marka nimanka Atlanta ninkan way iska siyaasanayaan. marka January ayaa la rajeynaya ayaa la leeyahay inuu dhaqaaqiyo sida Fabrizio uu leeyahay. marka waan arki doonaa wixii soo kordhay muuqaalka isna la garay kana subscribe nasar goodbye.